hal nin 3 sano gudahood wuxuu noqday magaca ugu hadlaynta badan qaaradda Afrika. Qaar waxay ugu yeeraan haliyey qaran, qaar kalena waxay ku tilmaamaan hogaamiye geesi ah oo ka hor yimid gumaysigii casriga ahaa. laakiin maanta magaciisa waxaa hareeyay dood cusub, dood aan ku saabsanayn oo keliya siyaasadda balse taabanaysa qiimka bulshada, doorka diinka iyo jihada uu dalkiisa u wado. marunbaa in Ibrahim Traoré uu bedelay mowqifkii ay dad badan ku taageeri jireen, mise waxaa jira hadallo si qaldan loo fasiray daawade. maanta waxaan dib u eegaynaa qofka uu yahay Ibrahim Traoré, waxqabadkiisa, daliilaha loo jeediyey iyo casharada Soomaaliya ka baran karto. kusoo dhawaada kanaalka waa anigoo ah Amiirka Waara. haddii aad jeceshahay falaqeyn qoto dheer oo ku salaysan xaqiiqooyin iyo dhacdooyin dunida ka socda, ha iloowin inaad dhahdo subscribe, like iyo share. mahadsanid. muuqaalkan ujeeddadiisu ma aha in lagu taageero ama lagu weeraro qof gaar ah. waxaan isku dayaynaa inaan kala saarno waxa la xaqiijiyey, waxa dood ka taagan tahay iyo casharada laga baran karo. marka nala soco ilaa dhammaadka. qaybta koowaad, yuu yahay Ibrahim Traoré? Ibrahim waa sargaal ciidan oo Burkina Faso ah. sanadkii 2022 ayuu talada dalka ku qabsaday afgembi militari, xilli dalka uu wajahayay amni darro xooggan iyo weeraro joogto ah ay geysanayeen kooxo hubaysan. markii uu xilka la wareegay, shacabka intooda badan waxay ka niyad jabeen dowladihii isaga ka horeeyey. waxay dareemayeen in amniga sii xumaanayo, dhaqaaluhuna burburayo. Ibrahim wuxuu ballan qaaday isbeddel. wuxuu sheegay in dalkiisu u baahan yahay madaxbannaani dhab ah. wuxuu bilaabay inuu yareeyo saamayntii Faransiiska oo muddo dheer door weyn ku lahaa Burkina Faso. tallaabadaas waxay soo jiidatay indhaha Afrika oo dhan. dad badan ayaa u arkay inuu astaan u yahay jiil cusub oo hogaamiyeyaal Afrikaan ah oo doonaya inay dalkooda ku tiirsanaadaan awooddooda. muddo gaaban gudaheed waxaa la sheegay in la dardargeliyey mashaariic la xiriira waddooyinka, beeraha, wax soo saarka gudaha iyo dib u habeynta ciidamada. taasi waxay keentay in taageerayaashiisu ku tilmaamaan hogaamiye ficil badan oo Afrikaan ah. laakiin dhinaca kale waxaa weli jiray caqabado waaweyn. kooxaha hubaysan ayaa sii wada weerarada meelo badan. hay-adaha xuquuqda aadanaha waxay sidoo kale soo bandhigeen walaacyo ku saabsan xorriyadda saxaafadda, siyaasadda gudaha iyo xaaladda amniga. sidaas darteed sawirka Ibrahim wuxuu noqday laba dhinac. qaar waxay u arkaan geesi, qaar kalena waxay leeyihiin weli waxaa jira su'aalo waaweyn oo u baahan jawaabo. markii taageeradiisu erka isku shareertay, waxaa soo baxay dood cusub, dood aan ku saabsanayn ciidanka ama siyaasadda oo keliya, balse ku saabsan hadallo loo nisbeeyey Ibrahim iyo sida loo fasiray. qaybta labaad, halkee ayuu muranku ka bilowday? su-aasha ugu weyn ee maanta la isweydiinayo waxay tahay daawade, maxaa iska beddelay sawirka Ibrahim? muddo dheer taageerayaashiisu waxay ku ammaani jireen hal arrin oo muhiim ah, in uu ka hor yimid saamayntii shisheeye ee Burkina Faso. taasi waxay ka dhigtay inuu noqdo astaan ay dad badan oo Afrikaan ahi u arkaan halgan cusub oo ku saabsan madaxbannaanida. laakiin markii xaaladda gudaha ay xoogaa degtay, waxaa soo baxay hadallo iyo weeraro cusub oo dood badan dhaliyey. baraha bulshada iyo warbaahinta qaarkood ayaa faafiyey hadallo loo nisbeeyey Ibrahim oo ku saabsan doorka waxbarashada, diinka iyo mudnaanta ay tahay in dowladdu siiso waxbarashada farsamada. qaar waxay hadalladaas u fasirteen in uu yareynayo muhiimadda culimmada iyo shareecada. qaar kalena waxay ku doodaan in ujeeddadiisu ahayd in dalka loo kordhiyo injineero, dhakhaatiir, farsamayaqaano iyo xirfadlayaal kale, halkii uu ka weerarayay diinka lafteeda. halkaas ayay dooddu ka bilaabatay. su-aashu waxay noqotay, ma wuxuu dhaliilayay nidaamka waxbarashada mise wuxuu si toos ah uga hadlayay diinka? waa laba arrimood oo aad u kala duwan. marka laga hadlayo arrin xasaasi ah sida diinka, waxaa muhiim ah in hadal kasta lagu qiimeeyo macnaha guud ee uu ku yimid iyo in la hubiyo inuu dhab ahaan ka soo baxay qofka loo nisbeeyey.
taasi waa sababta ay saxafiyiinta iyo cilmi baarayaasha mar walba u kala saaraan hadalka la xaqiijiyay iyo hadalka lagu faafiyo warbaahinta bulshada. Waxa aan si kalsooni leh u oran karno waa in doodan ay saameyn ku yeelatay sida qaar ka mid ah dadka Afrika u arkaan Ibraahim. Dadkii shalay si buuxda u taageersanaa qaar ayaa bilaabay inay isweydiiyaan su'aalo cusub, qaar kalena waxay weli ku adkaysanayaan in waxqabadkiisa dhaqaale iyo siyaasadeed uu yahay waxa ugu muhiimsan. Laakiin hal xaqiiqo ayaa jirta: Afrika gudaheeda diinku waa qayb ka mid ah nolosha bulshada. Muslimiin iyo Masiixiyiin badanba waxay aaminsan yihiin in hogaamiyuhu uusan ku koobnaan karin horumar dhaqaale oo keliya, balse sidoo kale uu ixtiraamo qiyamka iyo caqiidada bulshada uu hogaaminayo. Taasi waa sababta hadal kasta oo loo arko mid taabanaya diinka uu noqdo arrin si degdeg ah u dhalisa dood weyn. Dhanka kale, taageerayaasha Ibraahim waxay ku doodaan in xoogga la saaro waxa uu qabtay intii uu xilka hayay. Waxay tilmaamaan mashaariicda gudaha, dadaalada lagu xoojinayo isku filnaanshaha dalka iyo yareynta ku tiirsanaanta quwadaha shisheeye. Dadka dhaliilayase waxay leeyihiin hogaamiye kasta waa in lagu qiimeeyaa dhammaan dhinacyada amniga, dhaqaalaha, xorriyadaha iyo sida uu la macaamilo qiyamka bulshada. Sidaas darteed, doodda ku saabsan Ibraahim maanta ma aha oo keliya dood ku saabsan hal qof. Dood ka weyn waa dood ku saabsan nooca hogaaminta ay Afrika u baahan tahay. Ma hogaamiye xooggan oo diiradda saaraya horumar dhaqaale, mise hogaamiye isku dheelitiri kara horumarka, xorriyadaha iyo qiyamka bulshada? Su'aashaas weli jawaabteedu way furan tahay. Laakiin marka laga soo tago Burkina Faso, maxay Soomaaliya ka baran kartaa waayo-aragnimadan? Maxay yihiin khaladaadka aan weli ku dhex wareegayno? Qaybta saddexaad, maxay Soomaaliya ka baran kartaa? Marka laga hadlayo Ibraahim, su'aashu maaha oo keliya muxuu ka sameeyey Burkina Faso. Su'aasha ugu weyn waxay tahay daawade, maxay dalalka kale ee Afrika ka baran karaan? Waxaa ka mid ah Soomaaliya. Soomaaliya waxay soo martay in ka badan 30 sano oo dagaalo, burbur iyo dowlad dhisid adag. Waxaa la dhisay hay'ado dowladeed, waxaa la qabtay doorashooyin dadban, waxaa la helay taageero caalami ah. Laakiin shacabka Soomaaliyeed weli waxay isweydiinayaan hal su'aal oo muhiim ah: horumarkii la taaban karay xagee buu marayaa? Qof kasta oo booqda dal horumar sameynaya wuxuu arkaa waddooyin cusub, warshado, beeraha oo la casriyeeyey, koronto iyo adeegyo sii fidaya. Laakiin Soomaaliya weli waxay wajahaysaa caqabado badan: amniga, shaqo la'aanta, dhalinyarada, adeegyada bulshada, musuqmaasuqa iyo khilaafaadka siyaasadeed. Taasi micnaheedu maaha inaan wax horumar jirin. Waxaa jira guulo la gaaray, laakiin dad badan waxay qabaan in xawaaraha horumarka aanu la jaanqaadi karin baahida shacabka. Casharka ugu weyn ee laga baran karo waddan kasta oo Afrika ah waa in hogaamintu aysan ku ekeen hadallo qurux badan. Shacabku waxay rabaan natiijooyin muuqda. Waxay rabaan waddooyin, waxay rabaan iskuulo, waxay rabaan isbitaallo, waxay rabaan amni, waxay rabaan shaqooyin, waxay rabaan dowlad isla xisaabtanta. Dhanka kale, Soomaaliya waa dal ay diinka Islaamka door weyn ku leedahay nolosha bulshada. Qiyamka diinka iyo dhaqanka ayaa qayb muhiim ka ah aqoonsiga shacabka. Sidaas darteed, hogaamiye kasta oo Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay inuu fahmo in horumarka iyo ilaalinta qiyamka bulshada aysan qasab ku ahayn inay iska hor yimaadaan. Waxaa suurtagal ah in la horumariyo waxbarashada, dhaqaalaha iyo tiknoolajiyadda, isla markaana la ilaaliyo qiyamka ay bulshada aaminsan tahay. Marka la eego Afrika guud ahaan, shacabka maanta ma eegayaan hadallada oo keliya. Waxay eegayaan ficilada, waxay eegayaan daahfurnaanta, waxay eegayaan sida loo maareeyo hantida qaranka. Waxay eegayaan in hogaamiyuhu u shaqeynayo shacabka mise dano kale. Taasi waa sababta doodaha ku saabsan Ibraahim ay u noqdeen kuwo ka baxsan Burkina Faso. Waxay noqdeen dood ku saabsan nooca hogaamiye Afrika u baahan tahay qarnigan. Ma hogaamiye ku fiican khudbadaha, mise hogaamiye keena isbeddel muuqda oo lagu daray isla xisaabtan iyo ixtiraamka qiyamka bulshada? Jawaabta ugu dambeysa waxay ku xirnaan doontaa shacabka iyo taariikhda. waayo ugu dambeyn taariikhdu waxay qiimaysaa hogaamiyaha waxa uu qabtay iraadka uu ka tegay dalkiisa. saaxiibayaal, dooda ku saabsan Ibraahim weli way socotaa, waxaana muhiim ah in la kala saaro xaqiiqooyinka la xaqiijiyey iyo aragtiyada dadka. hogaamiye kasta waxaa lagu qiimeeyaa waxqabadkiisa, hogaamadiisa iyo saameynta uu ku yeesho bulshada. adiga maxay kula tahay, maxay Afrika iyo Soomaaliya ka baran karaan waayo aragnimadan Burkina Faso? aragtidaada noogu reeb qaybta faallooyinka. haddii muuqaalkan aad ka heshay, ha iloobin like, subscribe iyo inaad la wadaagto dadka kale. mahadsanidin.